السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو هذا داوديال أن idila wadaago guud ahaan wararkii ugu dambeeyay ee geyiga Soomaaliya Somaliland ayaa feejignaan dheeraad gashay iyada oo ka cabsi qabta duulaanka Iran iyo Israel in uu saameyn ku yeesho mandaqada geeska Afrika gaar ahaan Somaliland sargaal sare oo ka tirsan waaxda saadaasha hawada ee Somaliland ayaa wuxuu sheegay in heegan sare la geliyay shaqaalaha gurmadka degdega ah iyo kuwa ka shaqeeya adeegyada kala duwan ee deegaanada Somaliland kuwaas oo la soo warinayo in feejignaan dheeraad ah la geliyay sabab la xiriira weerarada Israel iyo Iran oo loo baahan yahay baa la leeyahay inay Somaliland ka aamusto la taliyaal ka tirsan xafiiska Cabdiraxmaan Cirro ayaa dabcan waxa ay soo jeediyeen aragti qallafsan oo ah in ay Somaliland cambaareyso weerarka lagu qaaday Israel Cabdiraxmaan Cirro oo dabcan arinta diblomaasiyadda si fiican u yaqaan ayaa sheegay in aan laga hadli karin arintaasi sababtoo ah niman la yiraahdo Xuutiyiinta oo dabcan hoostaga Iran waxay ku sugan yihiin magaalada Cadan ama magaalada Sanca gantaalada ay halka ka soo tuuraan toos bay ugu dhacayaan magaalada Berbera ama magaalada Hargeysa ama magaalada Burco waxa lagu la talinayaa marka madaxda Somaliland in ay si degdeg ah oo waliba dhaqsiyo leh ay arintaas uga aamusaan oo aysan ka hadlin iyaga oo la sheegay in hadii xaaladahan oo kale ay ka hadlaan dabcan cawaaqib xumo xoogan ay ka dhalan karto isla markaana ay xaaladdu tagi doonto meel aan waxba laga qaban karin Somaliland dabcan waxay dhawaan heshiis la gashay Israel waad ogeedeen in Somaliland ay dabcan aad iyo aad u bumbuuniso wararka ku saabsanaa Israel heshiiska la gashay sidaas lamida waxa jirtay aragtiyo kale oo ay soo jeediyeen qaar kamida dadka Soomaaliyeed oo leh xilligan ma mudnayn in Israel iyo Somaliland is aqoonsadeen laakiin calaa kulli xal hadda waxa naga qusayo mowduucan waa arintan Cabdiraxmaan Cirrana waxa la sheegay inuu ka gaabsaday isagoo ka cabsi qaba Xuutiyiintu inay duqeeyaan magaalo xeebeedka Berbera ee Somaliland oo gacanka Cadan ku taala iyo in sidaas lamida Hargeysa la duqeeyo dadka arrimaha la socda hadaba waxay leeyihiin waxa jirta aragti ah in si degdeg ah loo xaliyo arrimaha gudaha ka taagan yaani ictiraafkii iyo arrimihii la xiriiray in si degdeg ah loo xaliyo oo xiisadahan gobolka ka taagan aysan Somaliland ku dhaxmin ay dadka qaar leeyahay halka dadka qaarna ay leeyihiin Somaliland waa inay garab istaag u muujiso Israel oo ay ka hadasho taasi oo dabcan cawaaqib xumo ay ka dhalan karto Xuutiyiinta afayaan u hadlay wuxuu sheegay in ay tallaabo ka qaadi doonaan cid walba oo ka hadasha ama Israel ku taageerta duulaanka Iran ku qaaday Cabdimalik al-Xuuti oo hogaamiyaha guud ee kooxda Xuutiyiinta wuxuu sheegay in cawaaqibka ka dhalan doona weerarada Israel ee Iran uu noqon doono mid gobolka si weyn u gilgila Xuutiyiintu waxay leeyihiin anagu markii aan eegno sida ay xaaladdu tahay waxaa noo bannaan inaan dhacdooyinkan aan dusha ka daawan laakiin Israel aan weerarno laakiin waxa ka horeeya ay leeyihiin waa in si degdeg ah ay Xuutiyiinta Yemen u duqeeyaan Somaliland hadii la cala arrinkaas ay ka hadasho wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa markana qodobadeena kale qodobkan wuxuu eegayaa dhinacaas iyo gobolka Sanaag deegaanka la yiraahdo Shidane waxa la soo warinayaa xiisad culus oo halkaas ka taagan xiisadda waxa la soo warinayaa in dhaqdhaqaaqyo xoogan iska soo horjeedaan ama ay ka taagan yihiin beesha Warsangeli iyo ciidanka maamulka waqooyi bari ayaa dabcan xilligan soo fadhiya saacad walba waxa laga cabsi qabaa inay dagaal dhacaan sida ay saraakiishu u sheegeen xog aan helay ayaa waxa ay muujinaysaa in saraakiisha maamulka waqooyi bari ay tilmaameen in ay difaaci doonaan dadka deegaanka tuulada Shidan hadii weerar lagu soo qaado dabcan tan waxay ku tusinaysaa in ay xaaladdu hadda marayso meel aad xasaas u ah oo laga cabsi qabo inay dagaal dhacaan xaaladuna ay faraha ka baxdo waxaan la hadlay dhowr sargaal oo ka tirsan ciidanka Somaliland waxaana wax ka weydiiyay bal in ay wax ka og yihiin dhaqdhaqaaqyada halkaas ka socda waxayna saraakiishu u sheegeen in ay tallaabo qaadi doonaan hadii la isku dayo in la waxyeeleeyo arrimaha mustaqbalka iyo masiiriga halkaas ka taagan si walba ha ahaatee laakiin markaad eegtid ciidanka waqooyi bari ee heeganka ku jira
kuwa Somaliland ee fakfakadka ah waxay xaaladdu ku tusinaysaa in dabcan xaaladdu ay gaartay meel aad halis u ah oo laga cabsi qaba xataa gacan ka hadal iyo dagaal inay halkaasi ka dhacaan garaad jaamac gar Ismaaciil oo ah garaadka guud ee beesha jaamac Siyaad ayaa xalay mar uu la hadlayay odayaal dhaqameed beesha dhulbahanta ah wuxuu u sheegay haddii la isku dayo in dadka deegaanka weerarka lagu sii hayo in ciidanka waqooyi bari amar guud loo siin doono inay dagaalka toos u galaan taasi oo dabcan haddii ay dhacdo xaaladda gelinaysa jahwareer iyo meel aan waxba laga qaban karin waxay sidaas si lamida dadku sheegeen ama dadka arrimahan la socda ay leeyihiin bilihii lasoo dhaafay guuxa la xiriira in dagaalla ay ka dhacaan gobolka oo xiisado ay ka jiraan waa mid muuqata sababtoo ah Somaliland ayaa halkaa ku daabulaysa boqolaal ciidamo ah oo la sheegay inay xaaladan la soconayaan gudaana saaxiibayaal wararkeena intaas bay ku dhan yihiin hadday tahay markii kuugu horeysay ku soo biir channelka Himilo TV waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada aan halkan mar walba ku daabacno aragtidaada qaybta commentiga inoogu reeb soo dhawaada saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan habeen wanaagsan internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha